Assalaamu calaykum. Mid ka mid ah dalalka ugu rabshadaha badan dunida ayna u diiwaan gashan tahay inaysan awood kale aysan weligeed loodin marka laga reebo duulaankii muslimiinta ee bartamaha Aasiya. Haddaba ku soo dhowow daawade mawaadiic la xiriira calanka, juqraafiga, dadka iyo taariikhda Afghanistan. Fadlan intaynu muuqaalka u galin like saar muuqaalka kuna soo bir madashan. Dalkan waa mid ka mid ah dalalka ugu calan bedelashada badan caalamka, wuxuuna soo maray 28 calan tan iyo markii uu Ingiriisku ka tagay dalkan kuna guuldareystay inuu la wareego guud ahaan Afghanistan. Calankan waa calanka haatan ka taagan gudaha Afghanistan, laakiin ma aha mid ay dunidu ictiraafsan tahay. Calanka ay qaramada midoobay aqoonsan tahay waa calankan, waxaana la sameeyay 2014, wuxuuna shaqaynayay 7 sano oo kaliya kadib markii ay Taliban la wareegtay dalka. Laakiin calankan ayaan u tixgelinaynaa dalka maadaama uu yahay calanka ay aqoonsan yihiin 193 waddan ee qaramada midoobay. Calankan wuxuu ka kooban yahay 3 midab: guduud, madow iyo cagaar. Guduudku wuxuu u taagan yahay dhiigga iyo shahiidnimada. Madowgu wuxuu u taagan yahay waqtiyadii madoobaa ee soo maray taariikhda Afghanistan. Cagaarkuna wuxuu u taagan yahay rajada, mustaqbalka iyo islaamnimada. Bartamaha calanka waxaa ku jira astaanta qaranka, waxayna ka kooban tahay masjid, tawxiid, magaca dalka iyo sanadkii dhidibada loo taagay dowladdii ugu horeysay Afghanistan. Afghanistan waa dal buuraley ah oo xiran oo dhaca koonfurta iyo bartamaha Aasiya, wuxuuna xad la wadaagaa 6 dal oo kala ah Iiraan, Turkmanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Shiinaha iyo Bakistan, waxaana haatan si rasmi ah loogu yeeraa Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan. Laakiin wixii ka horreeyay xukunkii Taliban wuxuu lahaa dalku magac kale, waxaana loogu yeeri jiray Jamhuuriyadda Islaamiga ee Afghanistan. Dalku wuxuu ka kooban yahay 34 gobol, caasimadii magaalada ugu weyn waa Kabul. Sidoo kale waxaa jira magaalooyin kale oo waaweyn sida Herat, Kandahar iyo Mazar-u-Sharif. Dalkan waa dal buuraley ah, waxayna buuruhu daboolaan 75% dhulka Afghanistan. Buurahan waa kuwa awoodda u siiyay inaan si fudud lagu qabsan dhulka Afghanistan. Silsiladda buuraha Hindu Kush waa kuwa qariya oo daboola Afghanistan iyo sidoo kale dalal kale deriska Afghanistan sida Bakistan iyo Shiinaha. Dhulka Afghanistan wuxuu ku fadhiyaa bad ka badan 652,000 oo kiiloomitir oo laba jibaaran, waana dalka 41aad ee ugu dhulka weyn caalamka iyo mid ka mid ah dalalka ugu baaxadda weyn qaaradweynta Aasiya. Guud ahaan Afghanistan waxaa ku dhaqan dad ka badan 40 milyan, waana tirakoobkii ugu dambeeyay ee qaramada midoobay. Qowmiyadaha ugu waaweyn Afghanistan waa Pashtun, Tajik, Hazara, Turkman, Uzbek iyo kuwo kale. Pashtunku waa dadka ugu badan ee ku dhaqan Afghanistan. Sidoo kale Pashtunku waa qowmiyad degta Pakistan, waana sababta Imran Khan oo asal ahaan ka soo jeeda Pashtunka uu ugu doodo aqoonsiga dowladda haatan ka jirta Afghanistan. 99.7 dalkan waxay raacaan diinta Islaamka, 90% waa Sunni, halka 10% ay yihiin Shiico, waana Shiicada la yiraahdo Isnii Cashariyada. Sidoo kale waxaa jira nambar yar oo Shiicada Ismaaciiliyada ah oo ka haray xasuuqii Mongoolka, gaar ahaan Holocaust. Dadka Afgaanku waxay qaateen diinta Islaamka qarnigii 7 ee miilaadiga, gaar ahaan xukunkii khilaafadii Rashidun. Afghanistan waxaa la degay 7000 dhalashadii Nabi Ciise ka hor, waxayna ku jirtay kala guur inta badan taariikhdeeda. Alexander the Great wuxuu qabsaday Afghanistan, wuxuuna keenay gobolka dhaqanka iyo luqadda Greek-ga. Qarnigii 7aad Muslimiintii Jasiirad-lamoodka Carabiya ayaa soo gaaray Afghanistan kadib dagaalkii Nahawand oo ahaa dagaalkii ugu dambeeyay ee lagu dhameeyay Persia, laguna dhigay gacanta gobolka baaxadda weyn ee Khurasan oo ay ka mid tahay Afghanistan. Genghis Khan ayaa ku soo duulay qarnigii 13aad dhulka Afghanistan oo ku hoos jiray xukunkii dowladdii Khawaarzmiya ee bartamaha Aasiya, wuxuuna cagta mariyay Kabul, Herat, Jalalabad, wuxuuna ku dilay kumanaan Afgaan ah. Duulaankii Mongoolka kadib,
boqortooyadii Timurid ayaa dib u dhistay aaggaas oo mar kale ka dhigtay xarun lagu barto diinta Islaamka. Qarnigii 19aad, Ingiriiska isagoo raadinaya inuu boqortooyadiisa Hindiya ka ilaaliyo Ruushka, waxa uu isku dayay inuu Afghanistan ku darsado, taasoo keentay dagaaladii Ingiriiska iyo Afghanistan oo taxane ahaa. Ingiriiska waxaa lagu jebiyay dagaalkii saddexaad ee Ingiriiska iyo Afghanistan ee dhacay 1919 ilaa 1921. Afghanistan waxay noqotay waddan madax bannaan. Diseembar 1979 waxaa dhacay duulaankii Sofiyeetka ee Afghanistan, waana mid ka mid ah duulaanadii ugu xumaa ee soo maray ciidda Afghanistan, waxayna dagaaladaas barakiciyeen malaayiin Afgaan ah. Horaantii 1980-aadkii, jabhadaha mujaahidiintu waxay u midoobeen duulaankii Sofiyeetka iyo ciidamadii Afghanistan ee uu Sofiyeetku taageeray. Mujaahidiinta ayaa hubka ka helayay dowladaha Mareykanka, Ingiriiska iyo Shiinaha, iyagoo u sii marinaya Bakistan. 1989kii, Mareykanka, Bakistan, Afghanistan iyo Midowgii Sofiyeeti ayaa heshiis nabadeed ku kala saxiixday Geneva oo damaanad qaadaya madax-bannaanida Afghanistan iyo ka bixitaanka 100,000 oo ciidamada Sofiyeetka ah. Kadib ka bixitaankii Midowgii Sofiyeeti, mujaahidiintu waxay sii wadeen iska caabinta ay kaga soo horjeedaan taliskii Shuuciga ahaa ee Sofiyeetku taageeray. Dr. Mohammad Najiib, kaasoo loo doortay madaxweynaha dowladdii Midowgii Sofiyeeti sanadkii 1986, jabhadaha Afghanistan waxay u magacaabeen Sibghatullah Mujahideen inuu madax ka noqdo xukunka mujaahidiinta. 1992, mujaahidiinta iyo kooxaha kale ee fallaagada ah oo gacan ka helaya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa xoog ku galay magaalada caasimadda ee Kabul, waxayna dhiseen dowlad uu garwadeen ka yahay Professor Burhanuddin Rabbani. Taliban waxay xukunka kula wareegtay ballanqaadyo nabadeed. Badi Afgaanka oo daalan sanado abaaro, macluul iyo dagaal ah kadib, ayay u oggolaadeen Taliban inay ilaaliso qiyamka Islaamka ee soo jireenka ah. Taliban waxay mamnuucday beerista boobiyeska iyo ka ganacsiga opiumka oo si weyn loogu beero Afghanistan. 1997, Taliban waxay toogatay Mohammad Najiib oo ahaa madaxii xukunka Shuuciga Afghanistan. 1998, kadib qaraxyadii ISIS ee 2 safaaradood oo Mareykanku ku leeyahay Afrika, Mareykanka ayaa dalbanayay in Bin Laden loo soo gacan geliyo. 11kii Sebtembar 2001, waxaa la qarxiyay daarihii mataanaha New York. Maalmo kadib, saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Bin Laden uu ka dambeeyay falkan qaraxyadii daaraha mataanaha New York. Oktoobar 7, 2001, kadib dalabaadkii Mareykanka ee Taliban ee ahaa inay ku wareejiyaan Bin Laden, Mareykanka oo weli looga jawaabin dalbashadiisii Bin Laden, ciidamadii Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska ayaa bilaabay duqeymo ka dhan ah bartilmaameedyada Afghanistan. Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa bilaabay inay duqeeyaan bartilmaameedyada Taliban iyo saldhigyada la sheegay inay leeyihiin shabakadda Al-Qaacida. Taliban ayaa ku dhawaaqday inay diyaar u yihiin dagaal Nofeembar 13, 2001, kadib toddobaadyo dagaal ba'an ah oo ay kula jireen ciidamada Taliban. Isbahaysiga waqooyiga ayaa galay Kabul. Taliban oo dib u guratay waxay u jihaysteen dhanka koonfureed ee Kandahar. Diseembar 7, 2001, dagaalyahanadii Taliban ayaa isaga baxay fadhiisinkoodii ugu dambeeyay ee Kandahar. Diseembar 22, 2001, Hamid Karzai ayaa loo dhaariyay inuu noqdo hogaamiyaha dowladda ku-meel gaarka ee Afghanistan. Karzai ayaa galay Afghanistan kadib markii uu musaafiro sanado ah uu ku noolaa dalka ay jaarka yihiin ee Bakistan. Shirka ay qaramada midoobay soo qabanqaabisay ee lagu go'aaminayay dowlad ku-meel gaar ah ayaa Karzai waxa uu horey u haystay taageerada Mareykanka, waxaana dhammaadka shirka loo doortay hogaamiyaha dowladda 6 bilood ee soo socota. Mareykanka iyo xulafadiisa NATO waxay Afghanistan joogeen muddo ku siman 20 sano ilaa uu Biden ku dhawaaqay hadafka ah in la dhameeyo ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan. Bishii Agoost, ciidamadii ugu dambeeyay Mareykanka ayaa ka baxay Afghanistan. Ugu dambeyntiina 15kii Agoost, waxaa awoodda dalka la wareegay Taliban, waxayna galeen Kabul.
15 Agost 2021. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Waa inoo muuqaalka xiga iyo Albania.